madaxweynaha dawladda galmudug saas ku runta malinay madaxweynaha galmudug waan ku bogaadinaya markii ugu horeysay horta inuu soo abuuray oo soo yagleelay dawlad lagu faani karo oo galmudug qiimaheedii sare u qaaday oo aad horta qaali uga dhigtay galmudug isku duubaniyo kaliya qaran baad dhisteen haddaan sidaan u malaynayna asagaadan dooran lahaynba marka hore waxaan aaminay markii madaxweyne axmed cabdi kaari yiri waaya arag isku wadi kara umadaas uu madaxweyne axmed cabdi kaari dhisay ee galmudug aad iyo aad qiimaha sare u yeeshay stock marketka iyo dhulka iyo deegaanka intaba horta waxaa ogaataan in qiimihii galmudug sare u qaadeen geesinimada uu dhigtay meel galmudug oo uu ogyahay waxaa ka jiray afartii sano aan soo dhaafna waxaa ka jiray inuu shaarka u soo siibto oo yidhi I'm the one daaweynayo waa aniga inuu yidhaahdo waa geesinimo waagaas siday u jiilay ayadoo sawiran waa la helayaa haddii la raadiyo ilaahay unbaa garanaya maantana siday u taallo waa si kale runtii horumarka ka muuqda wanaagga isriyeynta nolosha dadka iyo deegaanka ka muuqata magaalo casri ah madaxtooyadaan aragnay wasaaradihiaan aragnay oo institutionska dawladda mid walba uu guri leeyahay oo wadooyinkeedii dhisanayso eerboorkii baa soo socda jidad baa soo socda sii kordhiya xawaarahana sii wada hadda shaqadan sida aan ku wadno haddaan ku wadno inta xataa Ameerika waa laga dhigi karaa haddaan ummadiisu kabin insha Allah galmudug ayaa iska leh madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari hogaamiye ka ah horta alxamdulillah odaygeena nabadoonkeenna galmudug oday Soomaaliyeed baa tahay galmudug waa rajo rumowday rajadii rumowday ku magacaabayna midii hore waa ka bedelan tahay insha Allah taala haddaan xalli ka ahayn kuwii hore u baan imaanay madaxweyne axmed qorqorna sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa waxaan u dhaafayaa ahmed macalin fiiqa asaga laga rabaa runtii muddadii hadda uu doornaa hawsha uu qabtay hawl waxa weeye qaadan lahayd dawladaha iyo haddii cid kale ku dhex jirto qaadan lahayd sanawaad weey sanooyinkaasna waxay ka lumi lahaayeen dadka reer galmudug shaqo wanaagsan ayuu waqti kooban ku qabtay waa guul hogaanka boodasha waa rajo rumowday oo ku magacaabi karo hogaanka runtii madaxweyne axmed qorqor inuu yahay dowladii nabi nuux yahay dowladii nabi nuux waxaa saarnaa uunka ilaahay abuuray oo dhan saarnaa uunka ilaahay abuurana marka casrigan la joogo siyaasiyiinta ka dhibada marka siyaasiyiintii oo dhan hadda isla saaran marka madaxweyne qorqorna waxaa laga rabaa dowladda nabi nuux sukaanteeda inuu si fiican u hayo darawal fiican iyo naaquudo fiican way wadataa kabtan fiican annagana doonta inaanan ka boodinaa la rabaa oo siyaasiyiinta dhan ay saarnaadaan galmudug ay gaarto tilaabo ka mida tilaabooyinkii ugu muhiimsan waxaan aad iyo aad runtii caawa halkaan ku faraxsanahay emotional dadka ay wada noqdeen inaan qaaday mas-uuliyaddii ugu cusleed ee ahayd galmudug oo riyo rumowday oo ah good politics warniyow shaqadan shaqaadu dhib badan waaye maxaa markii wax fiican la qabto in la sheego wax fiican ma ka dhabayn kartaa ballanqaadkan waa ka culus yahay 40 milyan iyo 50 milyan marka gadaal inaan loo noqonaynin ayaan halkan rabaa anigana inaan ku diido waa shaqadii ayada ahayd kulliba maaragtay axmed qoorqor Allah ka badbaadiyo intii aan xilka hayay runtii dhib badan baan la kulmay midda dabiiciga iyo midda ummaddu geystaa badnayd waxaa laga ilmaayana systemkii bedel oo galmudug roonaado ma ilaa roonayntii intaan joogay waxaan shaqana u dir haddii kale aday kaa shaqaynayaan dood dheer iyo qaylo badan kadib axmed qorqor waxaan leeyahay axmed gurbaha dhagaha qabo ku melihi anna dabadaan qabanayaa dhagaha iyo kaa baxsan isagaana noo sheegi doona haddii ilaahayd axmed soo dhawow mikrofoonka dowladnimada iyo wadajirka galmudug difaacda qof qaldanna xumaanaad wadato iyo xil aad raadinayso iyo si xun u fakarayso ha ku saacidin Soomaalidu waa aragay noqoto waxna waa baratay khibraddu inay wax weyn tahay ogaatay fursadda marka in mar kale la doortaa koray u soo kacdo madaxweyne qorqor marka waxaan leeyahay wax ka ba'an ma jiraan dadkaada qalbigooda leh hel cid kale ku haysan karta ma leh taladu reer galmudug ay ka jirtaa
galmudug bannaankeeda wixii ka socdo ku yimaadeen inaan yac dhahan annagaa nalaga raba dadweynaha reer galmudug ayaa kugu diirsado dhammaan kula duubano codkuna waa ku diyaare markale daadihii galmudug hadda galmudugtiina idiin qurxoon saasa u qurxoontiin